wax badan bay yiraahdeen Somaliland waan goosanayna waqooyiga danta la lahayn Yuhuud ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in Yuhuud loo goyn rabo iyo qolo kale 22 bisha 12 waa habeenkii Jumcada 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda Yuhuudda oo loo yaqaan BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kristaan ah waraysigu waxa uu dhacay sida soo socota warku waa war aad u xun marka dhageysta ninka xukunkiisa oo baan siin doona hadii Rabbi qadaro subhanahu wa ta'ala wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yiri gaalka ka socda aan qolada Kristaanka magacaaga maxaa la yiraahdaa wuxuu sheegtay in bulxan la yiraahdo iyo magac noocaas u eg wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yiri xageed ku dhalashay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu yiri waqtigee baa tagtay dalka Yuhuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid oo ka soo baxday 1987 ilaa 1988 sidaas ayuu sheegay waxa sheegay saas ninkii gaalka ahaa wariyaha idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yiri yani markuu sidaa ku yiri hadda ma waxaad haysataa yani diinteed haysataa wuxuu ku yiri gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda Yuhuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyay wuxuu ku yiri xisbiga aad yani hogaaminayso ujeedadiisu waa maxay xisbigaas oo ah Christian oo xisbi Kristiyaana oo yani ka jira Somaliland wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo Somaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yiri ninka ka socda qolada gaalada ah wariyaha idaacadda Yuhuudda warka ayuu ku soo celiyay wuxuuna markaa weydiiyay imisa ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yiri Somaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanana 1 nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaan u fiirsan hadalka uu ninka gaalka oranayo wuxuu ninka asaga ku yiri oo yani ma wax haysataan kalsooni badan ha buu yiri maxaa yeelay markaan ugu yaraan qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira 350 caruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka Yuhuudda lana baro diinta Yuhuudda idaacadda Yuhuudda wariyaheedu wuxuu yiri oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta Yuhuudda gaalkii wuxuu yiri ha diinta Yuhuudda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyay wadanka Yuhuudda gaalku wuxuu yiri caruurta waxa gacanta ku hayda gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaan Luul ayaa gacanta ku haysa oo maamusha tarbiyadooda iyo waxooda waxaana si dhab loo bari doonaa diinta Yuhuudda dibna waa loo celi doonaa Somaliland waxay noo diideen buu yiri inay naga qayb galiyaan dawladda gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa nala ogol yahay saasa meesha ka muuqanaysa waa nala ogol yahay Somaliland waxay nagu dhahan dawlad diin baan ku xukumi doonaa sidaas ayaana halkaa ka soo cadaatay wax badan bay yiraahdeen Somaliland waan goosanayna waqooyiga danta la lahayn Yuhuud ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in Yuhuud loo goyn rabo iyo qolo kale waxaan halkaa ka soo cadaatay Somaliland in arrintaas ku jirto meesha waxa ninka isaga uu sheegay oo yani gaalka ah markuu yani arrinta ka waramayay magacyadiina miyaad bedesheen ayuu yiri wariyii idaacadda Yuhuuddu wuxuu ku yiri ha magacyo xun oo aan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka asaga ah wuxuu yiri oo wariyaha idaacadda Yuhuuddu xibna miyaad ka tihiin dawladda Somaliland wax ma ka tihiin wuxuu yiri gaalku ha waliba golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaan dad badan ku leenahay wa ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaas Somaliland sidaas ayaa jirta waxaynan doonaynaa inaanu isku yeelano saldhig iyo meel hagaagsan ayay yiraahdeen waqooyiga Hargeysa oo kale sida oo kale waxa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xiran oo ka shaqeynaya ayagu inay wax noocaas oo kala sameeyaan dad badan gacanta ku haya oo ku dhashay galgaduud gobolka loo yaqaan say ayaguna sheegteen meesha waxa idin kaga soo baxay waxyaa badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca ugu sheegayo oo ka imaanaya yani Australia qayb koox yar oo joogta iyo Mareykanka oo u soo socda Soomaaliya gudaheeda gobolada dhexe iyo Somaliland dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxa kale oo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dib badan geystaan waxa kale oo la sheegay inay jiraan noocaas oo kala oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka Buulaha oo meel la yiraahdo beled xaawo agihiisa waxaana lagu tala gashay in la laayo niman badan oo culimo ah
oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan saraakiil banaanka ka soo socota ayaana ku tala jirta waxay kaloo caddeeyeen inay jiraan 50 nin oo u tababartay ninkii hore dhibka badnaa inay la dagaalamaan 100 qofood oo 50 ku doonayaan inay dalka ku laabtaan si wadaadada wax looga qabto marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka laabta ama ha ka laaban idinka garanaysaan raggaas oo tababar ku maqnaa qaarkood markii hore qaarna ay mar damba baxeen marka dadka noocaas waa dad gaala ah oo aan ilaahay agtiisa waxba u oolin yani marka mas'uuliyadda meesha taala waa maxay Soomaalida waxay tiraahdaa habartii calaan dhashay ceelkiiba arga xumayaan calool xumo ku dilin oo aan dib ku soo gaarin adiga soo garanaysid marka yani ummadan ayada inay balaayo ku dhacday wadaadadooduna ceelkiiba arga xumayeen waxba weyla ayhin odayaashooduna galshaan bay halka u fadhiyaan oo qaad bay cunayaan intoodii oo yani lagu sheegay inay wax barteen xagga maadigana waa inta ay u jeedin in la qaybsado gaban la yuhuud noqdeen gaban la ay buudiyo noqdeen gaban la ay meel kale ka imaanayaan xaaladdu sidaa weeye